السلام عليكم dhamaan asxaabta soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale maanta waxaan rabnaa muuqaaladii ay idin soo deerinayna muuqaalo ka duwan inaan idin soo duubno maanta waxaan soo duubeynaa haddii aad maqli jirtay Soomaali badan oo qaxday oo wadamo kala u qaxeen dagaalo jira awgeed haddaba wadankan maanta aan joogo waa wadankiisa ka qaxay sababaha ay u qaxeen ma ahan hadda dagaal waxa loo qaxay gaajo iyo dhaqaale xumo jirta awgeed hadda wadankaas aan ka hadlayo dad badan ayaa isweydiinaya waa wadanka Sweden mar waxa jirta dadka jooga ay ka haajireen ayna u haajireen wadanka Mareykanka iyagoo u aad halkaas in ay noloshooda wax ka bedelaan maadaama wadanka Sweden uu ahaa wadan aad sabab u ah bal haddaba maanta waxaan aad soo booqanaynaa meesha taariikhda lagu keydiyay ee museumka loo yaqaan ee ku taala dalka Sweden muuqaalka la socda kaarkaas aad u jeedaan ay ku qoran tahay New York Maps waa dadkii wadankan ka haajiray oo aaday New York si ay uga helaan noloshan ka duwan maadaama Sweden ay saboolnimo xun ay soo martay halkaas ayay Swedishka u tageen si ay noloshooda ay uga bedelaan xaggana ay shaqo uga helaan boorsooyinkan aad u jeedin boorsadan waa boorsooyinkii dadkii hore oo safri jireen markay safrayeen dadkan ayay ku qaadan jireen alaabaha kabahaas aad u jeedin waa kabahii qadiimiga ahaa waay kabahaas waxa laga sanadka ay ka imaadeen haddii aan idin sheegno waa kan halkan waxaan aad u jeedaan waa agabkii oo dadka ay isticmaali jireen oo normalka ahaa dadka militariga ah saa u jeedida kaarkan aad u jeedida waxa la yiraahdaa Building Trades Council way ku qoran tahay u jeedin waa ID kaarada ee dadka isticmaali jiray waan u jeedin halkaas shahaadada ay haysteen oo markaas ay ahayd Mareykan inay aadeen marka dadkan waxyaabihii taariikhdooda iyo dharkii iyo wixii ay isticmaali jireen oo dhan ayaa halkan lagu keediyay halkan waa dad oo family ah waxyaabahan saabuunkaas aad u jeedaan waa saabuun oo taariikhiyan ah waay saabuunkii iyo wixii ay isticmaali jireen iyo bahalihii cidiyaha lagu waxaysan jiray kulli intii meel la dhigay shanladan waa taqaaniin anaga Soomaali hadaan ahna waxyaabaha taariikhiga dhan waan tuurnaa kadibna waxa la waan ku wareernaa dhowdii dadkii hataa si looga sheekeeyo way adkaanaysaa maadaama wax oo la haayo oo itus iyo itaabsi ah ma jiro laakiin wadankan oo u jeedaan xitaa oo kiyalihi iyo farankaboolihi barigaas la isticmaalay hataa way keediyeen oo meeshaan ay ku dhaafeen meeshaan markii aad akhriso taariikhda halkan ku qoran tahay markaan idinku turjubaano maxaa la yiraahdaa Swedish aan marka af Soomaali idinku turjubaano halkan taariikhda waxay ku qoreen Ingiriis iyo waxay ku qoreen iyo Swedish ay isku qoreen waxa la leeyahay Swedishka oo wadankan ka haajiray oo aaday wadanka Mareykanka 1884 ilaa 1920 ay Swedishka badankood xagga u haajireen leeyihiin waxa xagga aaday leeyahay markii ay Swedishka ay xaggaas u haajireen waxa jirtay ku leeyihiin maxaa la joornaalo 3444 oo joornaal oo kala duwan ayaa ka soo bixi jiray leeyahay wadanka Mareykanka kuwaas oo ku qoran leeyihiin maxaa luqadda Swedishka bal hadaba dhageysaya meeshan waxay ku qoreen waxay leeyihiin Swedishka markii ay Mareykan tageen 3444 joornaal ayaa u soo bixi jirtay leeyahay oo wadanka oo luqadda Swedishka lagu qoray marka dadka Mareykankii ayaa qaarkooda waxay dhaheen war meeshan maxaa waxa ka socdo dadkan waa dad waxay ahaayeen oo soo galooti oo immigrant ahaayeen oo qaxooti ah luqadooda ayay meeshan ugu soo dhisayaan maxaa waay dadkan luqadda Ingiriiska inta meesha ka baxshaan ay luqadoodina ay ugu soo dhisi rabaan maxay taa filinkan marka iyaga marka waxay leeyihiin dadkii Swedishka halkaas u haajireen ee kuwii halkan joogeen wili calaaqad waxa ka dhaxeeyay oo inay dad wada dhashtay yihiin taasna waxa u sababtay kuwii xagga aadeen ayana luqadooda ka tagin wili luqadooda ay sii wateen oo hatta markay joornaal akhrisanayaan joornaalka luqadooda ay ku qoranayaan luqadoodana wili sidii u sii wataan marka waxa taas aan ka baran karnaa haddaan Soomaalinahan aniga caruurteena markaan China geeyna luqadda Chinese ka barnaa markaan geeyna wadanka Faransiisan barnaa Hindi hadduu aad Hindigu bartaa taasoo marka sababayso wiilkan haddii uu weynaado wax xiriir uu la leeyahay wadalka Soomaaliya ma jirto wixii luqadda ahayd ayaa meesha ka baxay
oo maxaa la yiraahdaa ninkan wiilkan hooyadiisa qaxootinimo ku soo kortay wadan kale luqadiisa soo bartay tii Soomaaliga ee lumisay boqolkiiba 50 camal Soomaaliga hooyadii aba lumisay hooyada boqolkiiba 50 Soomaali taqaana asaga marka waxba ma sii barayso asaga marka waxa laga yaabaa cunug inuu zero noqdo cunugu sii dhala marka waxa waaye Soomaali inuu xataa inkira xataa way ka suurtooda marka tan waxaan ka baranayaa qodadka Swedishka waxa kala too leeyahay marka halkan aafirso leeyihiin dadka Swedishka oo aadeen maxaa la yiraahdaa dalka Mareykanka fiiriye waxay leeyihiin boqolkiiba 3 kaliya ayaa dad aan waxba qorin waxna akhrin ahayn inta kale dad wax qoro waxna akhri ahayn taas marka waxa cashar noo ah qofka hadii uu wax bartay oo waxna qoro waxna akhriyo meel alla meeshii laba hadii la geeyo adduunyada qofkaas dhaqankiisa iyo noloshiisa kama dhamayso waayo xataa haduusan dhaqankiisa iyo noloshiisa iyo hadii culture-kiisa haduu xataa arki karin waxa u fududaanayso inuu wax akhriyo joornaalada iyo wixii socda adduunyada inuu wali wadankiisa inuu wali wax macluumaad oo si akhristo ama buugaag oo luqadiisa inuu si akhristo ay u fududaanayso laakiin qofka aan waxba qorin waxna akhrin hadii uu wadanka ka tago meel cidla la geeyo Soomaaliga waa baaba'aya marka taas naftirkeeda way sahashay marka wadankeena waxyaabaha aan rabno hadda inaan xoog saarno oo aan rabno qofka inuu wax barto oo wadankan waxa arkaysaa islaan 99 sano jirto oo waxna qorayso waxna akhriso Soomaaliya laakiin boqolkiiba meeqa qofood ah waxna akhriso waxna qorto su'aashaas adinka ayaan idin dhaafaya boorsooyinkan u jeedaan waa boorsooyinkii oo kamid ahay waa dadkan markii qaxayeen boorsooyinka leatherka laga sameeyay waa u jeedaan quality-gooda waxa ay 1800 ay ka imaadeen boorsooyinkan waa isla boorsooyinkii loo isticmaalay dadka markay baxayeen inay alaabahooda ku qaataan wax ay ka tageen malaha dadkaana ugu hadda maxaa lahaa dhibaato ma qaxinin ee waxa qaxiyay economy la'aan ama dhaqaale xumo ee wadanka ka qaxisay wadankan waa u jeedaan halkaas calanka Mareykan waay oo markaas calanka Mareykan oo meeshii cadaanka ahay waxay ka dhigeen jaalay ka dhigeen iyagoo ku lifaaqaya calanka Sweden marka meeshaan markay ka baxeen bal arkayna marka meesha si aadeen waxaana buugaag ay u jeedin iyo taariikhda ay u jeedin dhan waa dadka laga qoro waay oo meesha aadeen gurigana u jeedin waa qaabkii ay Sweden ay u deganaan jireen guriga noloshaas oo raafka ay ku noolaan jireen halkan hoos markaad aragto geeda jaritaanka iyo waxyaabahaas ay ka shaqeysan jireen oo shaqo ma lahayn wadankan meeshaan hoos markaad fiiriso waad u jeedaa dukaamada hadda Afrika wali sida ay sameynayso 2024 dad badan Afrikaan ayaa saan wali ku shaqeysta waa u jeedaa ninkan muuskiisa iyo wixiisa barnaamijkiisa iyo kioskiisa ag fadhiya marka nolosha wadankan qof walba jabka waa soo wada maray dharkan waa dharkii oo ka imaaday barigaas ay gashan jireen waay kabahan fiir ilaan kugu dhalay kabahan la gashan jiray Sweden waa kaba laga sameeyay alwaax kabahan ilaa hadda dad waxaa jira Hollandees oo wali kabahan sameeyaan marka kabahan hadda qofka soo ugu soconaha waxaan lugaas ku xanuunayaan marka kabahan lagu soo anjir jabka waa la soo wada maray waxaan dhan u jeedaa qof walba dhibaatada soo arkay kabahaas waa kuwaasa kabahaas saas ayaa la gashan jiray iyagoo ay gashan yihiin raggina waa kuwaan marka wadankan dhib badan la soo maray fardahaas lagu shaqeysan jiray fardahaas oo jeedaan fardahaas ayaa gaadiid u ah wadankan dad badan waxaa jira oo sanduuqan inta aqoonsan karo sanduuqan ilaa hadda dad Soomaaliya waxay sameeyaan waxyaabaha taariikhiga iyo warqadaha dokumentiyada lagu xareystaa waayo sanduuq jabay ma aha waa sanduuq qadiim oo alwaax waay oo si fiican u adag waay sanduuqan waxa laga yaabaa wuxuu ka imaaday 1800 oo ka imaaday ilaa hadda sidiisa ma bedelin
waayo baalkan waa la ilaaliyaa. waxyaabihii hore marka waxaad ku ogaanaysaa quality-ga ay lahaayeen waan waxaan caadi ahayn waayo wax weligood jabay maaha. waa kan sanduuqa waxyaabaha lagu ridan jiro waa kan ninka koofidiisa iyo qalabkiisa iyo waxaas uu kula jiro qaandadiisa waa waxyaabaha dadka ay asaasiga ay isticmaalaan waxay ku isticmaali jireen waayo. meeshaan waa xafiis oo dadka markay Swedishka markay baxaan ay aadaan Mareykanka xafiisyada ay tagi jireen ay shaqada ka dalba jireen waayo. xafiisyada intay tagaan dhiigay wanimo aniga shaqaan rabaa wadanka gaaja iga soo saartay halii kala kiciyo meelaha dhigi jireen waa meelahan oo kale oo ujeedaan typewriter-koodii iyo xafiiska barigaas wixii la isticmaali jiray computer iyo filmkaas ma jiri jireen barigaas. sanduuq iyo maxaa lahaa armaajo waxaas ma jirin marka sanduuqaas iyo waxaas ay aali jireen meeshaas. marka taariikhda barigaas exactly sida ay ahaan jirto nolosha nal ma jiro waxaas shumacaas la shidanay. marka haddii oo dadka Swedish jooga yaqaanaan xafiiska shaqada haddii ay ku wareeriyeen arbetsförmedling waxaas hore loo soo jabo dadkan iyaga laftirkooda waxaa soo mareen inay intay tagaan meesha maxaa la yiraahdaa oo shaqada ay maanta shaqo ay codsadaan. meeshaan waa meesha ay shaqooyinka codsan jireen waayo iyagoo xataa weliba aan garanayn xataa luqadda ingiriiska iyagoo garanayn oo loo turjumaanayo badankood qaarkood. marka dadkan luqadooda mar walba xooga saaraan. arbetsförmedling aad fadhi kugu dilaysaa u sugayso inaad shaqo hesho sidaas ay Swedishka laftirkooda meel u fadhin jireen mar xafiiska oo jeeda waa kana waxaa la dhihi jiray waraa waiting listiga ku jirta meeshaas fadhiiso waa meesha ay ka keenay Swedishka inay leen galaan maanta dhan. wadankan waa dadka ugu jecel adduunka in meel walba leen la galo. 3 qofood hadii oo wax ay sugayaan waxa la leeyahay waraa leen hala galo aniga leen iyo waxaas iyo waxa waa ku stresseenaa oo jeeda ninkaas camal saas u fadhiya leenkiisa sugaya maanta. ninkan taaladan loo sameeyay oo baalkan laga qoray ninkan mar fog ma dhiman mar dhow ayuu dhintay ninkan 1929 uu dhashtay 2020 ayuu dhintay ninkan. waxaa laga yaabaa xilliga coronavirus-ka dilay ninkan wax walba ka soo badbaaday dhibaato badan oo soo maray ilaahay wuxuu qoray inuu coronavirus inuu dilo qoro ninkan. meeshaan waxaa waaye filman videoyaal clip yar oo taariikhiin ay meeshaan dhigeen. hadda ninkan hadda taanita oo hadda marabna inaan dhageysano hore aan dhageysanay ninkan waxa la yiraahdaa Walter Hebelka la yiraahdaa wuxuu ka imaaday wadanka Czech Republic oo ka imaaday Sweden ayuu imaaday laftirkiisa. marka waxay leeyihiin anaga maadaama aan qaxnay dad noo soo qaxana way jiraan. hadda ninkan oo kale wuxuu ka imaaday wadanka Czech Republic ayuu ka imaaday taariikhdiisa ay ka duubeen oo sababay soo qaxiya ayuu ku sheegaya kamarkaas. naagtan u jeedaan iidan waxa waaye naagtan waxa waa naag Bosnia waaye Bosnia ka soo qaxday 1993 dagaalkii ka dhacay Yugoslavia dartiisa u soo qaxday. haye kan waa Eritrea gabadhaas u jeedaan iidan Eritrea ka soo qaxday 2015 soo qaxday ay wadankan imaatay. iidan waa dhibaato wadankan keentay. iidan halkan waxaan ku haynaa iidan Uruguay laga soo qaxay iyagana maxaa lahaa waxay soo qaxday Sweden waxay imaatay 1977 wadankan imaatay naagtan. marka wadankan qof walba dhibaato ku dhici karto qof walba maalin ay qabsan kartaa. marka waa la soo kala horeeyay maana wadankan macnaha iyaga laftirkooda laga yaabaa inay waqti dambe imaadeen. marka Swedishka winterkooda waa kana bondada ay dhismaysan jireen waxaan iga dhisteen samajid waxa alwaax ah laakiin dadkan waxay ku tusinaysaa wadankooda inay dhexda intay u xirteen ay dadaaleen ay wax walba macnaha ugu sabreen. laakiin aniga Soomaaliya anaga saas uma sabarno. aad u mahadsantiin haddii aad nala soo gaarteen intaan fadlan haddii aad channel ku cusub tahay like iyo subscribe noo saar tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah haddana waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.